lagu soo dhaweeyey magaalada garowe caleemasaarkii deni xamse in laascaanood lagu soo dhaweeyey maxaa diidaya sidaasay ku doodayaan reer adi ha isku keeni sababta adi xamse usoo dhaweysa maxay tahay caleemasaar maa jiri xaflad maa jirti wax maa jiri ma calanaa ku taagnaay ma adiga sida beesha caalamka ku aqoonsan inaad tahay dowlad goboleed balse maxaa xasanka naftiisu casuumo wasi adiga مثلا هذه أي أهل سنة جوري حرية كان سنة تومن كوغوسا whatever كان شيء مدحونا فدراسة محكوه إمامها أشجع محكوه وصل درعون جر شن لنا أون كان حمان تيسكي شقينا ده حمان يسقوها ومحاول أحكي ليس يعني لكن وحي كلي لكن دول بهمته وحي كدوديان أو حسن شيخ محمود ما حلال با أو حمسنا إنه الله سبحانه دي ما ده حرام با ها حرام وقتي مركوز حسن marka waqtigaas oo kala xamse iyo haruuse iyo dad adkeeyay adiga ay dhulka mamnuuc ka yihiin wax xaraan inaad waqtigaas oo kala cazito laana fitnada meesha ka socoto aad silid ku soo sheegtay anu ma haysto inay dawlad noqdaan ama cirka ha noqdaan ama mareykan ha noqdaan laakiin hadhaxgal laba burood is dilayso adiga ha noqon in cooskii baabiilha hadda saatum hadday u malaynayso inay wax ka faa'iideyso dawladdan xasan they are wrong waa qaldan yihiin hadday faa'iido jirto qaatumo faa'iido waxay ugu jirtaa labada dhinac labada koona ay ka taagan tahay hadalkii shalay oo deni waxaa ku jiri xataa ayaan la siyaasiyeyn ganacsiga isku furno inkastoo Soomaaliland xorgufteeda jira halaba furo xanta wuxuu ogle taasoo deni ka hadla wax kale kama hadlin way كورنيلي مركب ما أركي يسمع معنيه هذا قاتمه محل قدون مركب أنا فيري قاتمه يدني كلام رجالي لكن مركان أرجع رنت لك تابني حوا قاتمه دقدقة كجرة سياسة دقدقة ومباهمة لأنه حوا الصومال واحد هذه جيت دقدقة الوكرة وما حي دقدقة قاتمه وما حي دقدقة كجرة وما حي دقدقة هاي وحلها هرتا تايم أي حمزة أي كانسلين تايم دولة أجت ما تحضر هذا الدولة عن جيرين أدوك كذا وحلا شيء وجدي في أودن بيشة هتشال ليري أصلي شيء in 60 days هذا كين وصومالي ودن هذه واحد بتيجي هذه الدنيا هذه حمدوي هذه لفظ كرين واسمنتين أنا كوماندينا وحال كان يدين كوال وعي وحان يدين كوال وعي مش ليري أوغندا خاتم مروعة مركز وغاندا ما أخوصن تاي خاطب إني استيت تاجن تاي مش حسن كلي أخوص مثلا مري أي استيت إني يجين ما الله مري هرت برساس في أو صحها ولي برساس كذا ما دماني برساس كذا ما قاعد دمعه إلا أخوص له يودي وحني سي لو أخوص يدولان قولة كوكلة مركا وحير بتاعته لكن هدي وغاندا الأسبوعي ما الحسوا أبدا ما الحدنا من الغير خالد أسأل الرب إن دول خلا قالوا يعني يوري موزديني قال سوف نستمرها ما يمكن تجيب ليسك ممكن تجيب كلامات كذا عن كل شيء يعني بعد يحفظوا يعني بعد خلي بعد كل شيء من دولة سيد على هذيك ما حد شرط استيقاظ خالصة هذا والله جيرانك أو حمينيسة وأوجد أنا ده عقلي هكو مري هذا سنفرقي ده الكلام الحين أو شخصية أو ركاز SSC oo ku gatay oo dhulka wala jiidi marka ani reer SSC aqligiina fura fardhiga Djibouti oo niga soo iibiyay asiga door oo garaado nadiif waa jiraan oo masiirka umada ka shaqeynay laakiin garaado nigu taajira jiro oo fardhiga hore marka hadda example basiidan ku siina ma tagaya Uganda federal government inay ka mid yihiin yaa idii kar waa tagaya aban ku weydiinaan مو فرنتاي إيرداس حكموا لي هنا يتكلم هذا يوري مديرين ما أقولنا مش أفريقيا لنا أقولانيش ما أوصل ماشي دكتور لكي مش يقولي وحي وركا كونفليكت إيريا هنا يتها عقلي هالشيء واحد دقدقان ما في أنا سياسة دقدق ما هي أدو مركب واحد مسنت هاي معنيه خاتمة إن لو قد برجبينا يبونتلاند مساسة مسنت والله وأنت ننكسر عقل لا مثلا كلي ما دل أو كله حسن شيخ أننا ضارب أما خاتم هنقول أما عد كلا نقول أما حتى حمزة هنقول أما هروس هنقول أما كان ماشي وجو هنقول بوليس أنا هاي
ama jinna ha noqdo nin daarooda in general hawiye wax uma ogola waayo hawiye siday ku socdaan waxay sheegaysaa inay hawiism ka shaqaynayaan kaliya yarkooda iyo weynkooda ninkooda inaagtooda indhahaaga furdhe waryaa ninka dilay walaalkii anoo idan leeyahay dakhar baa gaadhi doonin bal afrikoodaya heeskan ani ma haysin ninka dilay walaalkii anoo idan leeyahay ninka dilay dine adoo ku dan leeyahay saaxib markii dani lagaa jaro oo walaalka garbihiisa lagaa jaro adiga waa sahalnaanaysa sida rabaa lagaa yeelana ani waa la talinaa waxaan hay ma is leedahay marka qaatumo ma arkaysa xasan sheekh maxamuud uu aqoonsanaya oo maamul dhamaystiran uu aqoonsan doonaa asaga aqoonsigiisa khatar ku sugayaan والله تانكو له تايمينج معها حسن أسقى أهين وحوياه جريمبا كنتن مالنا وهرسن حسن ولا شيء سياسة كنتن كانت مالن كديد كل كمبالا كورد نمبر 2 ولا تقع وحو نمبر دني هذا كيس شر وها يو انك يو اي افريقيا وحنا شفدي او بنول وسيدي انا واحمد دني ديارنا waxaan عين waliba geeyo walaalahay aan garab joogsano laakiin sharad waay xasan meesha uu taagan yahay ka soo noqo waana tan xasan la yiri meesha taagan tahay ka soo noqo wadar ogol noqday watan hadda ay dacayd gelinayaan ragal maxay barihiisa bulshada xasan ay leeyihiin madaxweynaha boosaaso aadaya dani la kulmaya kanoo sameynaya hadday dhacdo xasan inuu boosaaso aalo dani la kulmo waa u dhamaatay SSC uga laakiin Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu leeyahay boosaaso iyo Puntland imaansheeda waxa ka horeeya in yaani dastuurkii ay bedeshay ka noqotid xasan wuxuu rabaa haduu rabaa uusan waxba ka noqonin laakiin markaasi uu marmarsiyo ka dhigto waa soo raali gareeyay hawshiisana sidaas ay ku socoto فير maalinta xasan tago boosaaso beesha calanka markaan ka nimaado SSC tirtilmaysa SSC tirtilmaysa xasan dantiisa waxay ku jirtaa inuu dani xashiis loo SSC waxay u zaayinaysa mala beesha caalamka lana ma baaha meel la ixtiraasay wax mu tiraysa SSC runta taas way xasan dantiisa waxay tahay inuu la hashiyo Saciid Cabdullaahi Dani hadda gacanta isgeliyaan مع السلامة SSC وضمات SSC ماشي فيلم كده إيه كوراني تاس أفتي كوراني واي باركيس حسن شيخ محمود هدو بوصاصتك waxaad sheegtay in macni qaatimo ay u dhamaatay way laakiin qaatimadu waxay leeyihiin sida firdhiye aan ka dhageysanay waxaanu nahay maamul madax banaan oo go'aankooda iyaga leh haye محتى يسوعلي waxay leeyihiin iyagu maamul madax banaan oo go'aankooda leh baan nahay hadaan nahay qaatimo sidaas ay hadda leeyihiin firdhiyasaan ka dhageystay حقي كنا قناعة مرتب هذه الدولة فكرة جديدة ياسين خليفة على خليفة غريرة كل انتقاص واي على خليفة بلاه آخر أقول لك الشكل ما وحشوا عنها مهاتين كاسمه وسكتي لهم بقوة واي كورنيل لكن سو لغما يابو in يعني hadowdii haday xumaato Soomaaliland ay heshiis la gali karaan qaatimo ma dhici kartaa waxaan rajaynayaa Cornel Sharif ma arkaysa stuudiyaha ma arkaysa waa uu ka go'ay balse laakiin waa ku soo celin doonaa hadii Ilaahay uu ka raali noqdo Cornelka ma arkaysa si uu dhameystirto hadalkiisii kadibna dad fara badan ayaa saf ku jira Cornel uu ka go'ay dhameystiro هالو كورنيل وكاغو اي دمايسترو هالو كورنيل waxaan rajaynay cilad baa haysata waa ka gudbi doonaa waxaan u gudbi doonaa daawadaha ama dhageystaha lugeeya ee kale ee stuudiyaha Southern Media Corporation danaynaya inuu ka warramo dhageystayaal daawadeel dooda ayaan dhexda kaga jirnaa maanta ma arkaysa qof walbana ra'yigiisa uu dhiiba karaa qaatimo iyo yaa gardaran weey Puntland hello hello salaamu alaykum macallin waa ku salaamay khiyaarta kale waa salaamay meel joogaan waa ka qaaday Cabdi Salaan soo dhawow dooda ayaanu dhexda kaga jirnaa doodana waxa weeye qaatimo iyo Puntland yaa gardaran horta Cornelka ayaa arrintii gabagabeeyay ma garat
كوسع إصدبر ديجو بالحقيقة كورنيل كسودو وديجي وي مركا كنت كهلو خاطبة iyo Puntland lasma barbardhigi karo gardarradu way iska caddahay qof walba oo Soomaaliya iyo qof walba oo Islaam iyo qof walba oo wuxuu wax garada wuu ogyahay cidda gardaran horta nimankan waxa weeyaan shalay dhashero maamulo waa maamul gaamurayo muxuu ahaa jiray ilaa iyo 7 sano sii maraya iyo 26 waxay tahay maaqan ayuu sii maraya qoladana hadda waa qoladaas aqoonsiga raadinaysa oo hadda muxuu ahaa hana la aqoonsado inaan maamul nahay hana la aqoonsado leh oo xamse oo waxba la joogino gacan yaraha xasan shiiqa aqoonsiga raadinaya marka ayaga oo positionkii loo baahnaan gaarinba waxay bilaabeen mucaaradad Puntland mucaaradada ay bilaabayaanna waxa weeyaan waa mid xasan wato xasanna wuxuu doonayaa maadaama uusan daaroodkii kala gacanta ku hayn oo axmed madowna gacanta ku hayn ninka la yidhaahdo danina uusan gacanta ku hayn inuu ku xuxuyuu doonayaa marka iyaga waa buundo la doonayo in Puntland muxuu ahaa ama dani muxuu ahaa barasharhaan muxuu ahaa la tuso oo halkaas la iska tuso laakiin waa sida hadda uu dhigay korneylko waxa weeye bointiga meesha yaalla waxa weeye xasan haddii iyo dani ay wada kulmaan waxa weeyaan maalintaasaa u damaysa iyo muxuu ahaa axmed madoobe iyo ay damaysaan marka waxa weeyaan iyagu ma dareemayaan dadka meesha jooga siyaasi maaha ninkan fariyaha laleeyahayna siyaasi maaha qaadwale waxaa horboodaya oo siyaasi u ah inay Djibouti oo weligiis afkiisuna ka yidhi maalin dhaxaas aan waxna qorin waxna akhrin xataa intuu jaamacad tegay lahaa jaamacadda xagee muxuu ahaa maxaa looga baxayo maxay tahay masterka iyo muxuu ahaa bachelorka iyo maxay kala yihiin xataa gabar baa wareysanaysa waxay ahayd gobollada garow maxay ahaan jirtay inta aysan magaalo madaxda Puntland noqon oo maxay ahaan jirtay aday ku weydiinaya xataa gobollada Soomaaliya ma kala garanayo markii dawladdu burburisay 18 gobol ay ku burburtay xataa ma garanayo intii la weydiiyo garan way marka dad noocaas ah waxay u yihiin siyaasiyiin siyaasaduna waxay u baahan tahay waa sida hadda korneylku dhigay in la fariisiyo u baahan tahay degdeg uma baahna qofku waa inuu garan karaa siyaasadda haba qofka isla challenge garanaysaan qaabku u dhigayo nin la jaan qaadi kara waa inaad tahay siyaasadda markaa socotana qof la jaan qaadi kara waa inta laakiin haddaa iska dhexwarto hadaan baa ka dhacaysa marka fudayd fara badan iyo iska dhexwarad baa ka muuqanaya Puntland ma kuma haysato maamulkooda kuma haysato laakiin ayagii baa cadaawad bilaabay ayagii baa waxay bilaabeen xataa dadkii laascadood ku dhiganaya Puntland baa ka damaysay ayagii baa waxay bilaabeen inay caayaan raggii muxuu ahaa maamulka Puntland ku jiray oo mushaharkooda halkaa ka qaadanayay inay horgallo ku tilmaamaan inay hindi ku shiraabaan oo aan weliba gacmay ku hayn haddii qofku gacmay kugu hayo oo maamulkaaga uu banjarinayo gacmay ku hayn cadaawad waa u qaadi kartaa laakiin nimaan adiga waxba gacmay kugu hayn oo col kugu hayn oo waxba kugu hayn inaad taagaato caydo oo muxuu ahaa reer Puntlandkii dadkii shacab iyo dawladda caybay halkaa ula soo fariisan meediyaha hadday baraha bulshada tahay hadday maamulkooda tahay inay caayaan muxuu ahaa rag ayaga oo horgalla waa kuwa Hargeysa jooga weliba xabadda isku ridayaan faratoon baarlamaanka bil gudoomiye ka yahay ninka la yiraahdo isheeg inda fadhiya ina kooraa fadhiyo kuwa anigu magacyadooda ma qaale hadda laga dhigay wasiirada jira kama hadlaan kuwa Soomaaliland jooga horgallada kama hadlaan ina cambaasho xabad u wata oo dhulbaantaha xabad la dhacaya kama hadlaan reer Puntland inay wax siiyaan ama wax taraan mooyaan hatta ciidamadooda mushaharka siinaya dawladda hatta ka kabaysa muxuu maamulka hatta waxay ka kabtaa xagga muxuu adiga maxay hayto budgetka maamulka hatta waxbay ka kabtaa sidaas oo ay ku xiran yihiin muxuu ayrabo dekada boosaaso free bay u tahay waxooda cashuur laaf bay u tahay waxba lagama cashuuro waxa laala wixii ka degaya baabuur iyo raashin wixii iyaga u socda waxa weeyaan waa free taxi weeyaan waxba cashuur lagama qaado marka iyadoo sidaas loo naasuujinayo iyagoo sidaas loo gacan hayo iyagoo dhaqaale iyo nafba loo burburay ayay cadaawad halkaa la soo fariisteen iyo xumaan iyo inay dadkii caayaan hadday go'ayaan cid ku haysato male hadday xasan u yeeranayaan cid ku haysato male hadday xamse u yeeranayaan cid ku haysato male laakiin
waxa weeye meeshii waxay la soo fariisteen cadaawad